duruufta nolosha iyo waayaha duunku bulshada u kala nugul dantuna ka adag qaar baaqan iyo lixaadkana qaba qayrkoodna curyaan iyo ceyr yahay waana awoodda alle iyo hadiyad rabbaani ah. Nuuraddiin Faarax Budul waa wiil dhalinyaro ah oo alle aqli qurux iyo dabeecadda ku manaystay waxna bartay, balse labada lugood ayuu naafo ka yahay. waxaan ahay wiil curyaan ah. waa ogsoontihiin dhalinyarta markay shabaab yihiin waxyaalo badan iyo hami badan iyo wax walba ayaa fikradda ay ku mataa. qaar waxay ka fikiraan horumarkooda iyo waxooda iyo see horumar ku gaari lahayn dunida maanta ee la tartami lahayn inta horumar ka gaartay. anigana waxaan ka mid ahay inta ku fikirayso inta horumar ka gaartay inaan ka mid noqdo oo dunida wax ka qabsado oo waalidkayga iyo inta ila dhalata aan garab qabto. waa aqoon-yahan ka baxay dugsiga sare balse shaqo la'aan iyo takoor ayuu daris la yahay sida uu sheegay. Iskuulka waxaan soo bogay 2017 kadib markii inta aan imaaday university ama college weli ma bilaabin. waxaan application soo dejiyeen hay'ado badan waxay soo dejiyeen advertisement. hay'adihii advertisementkii markaan arkay waan apply gareeyay. applicationkii markaan geeyay interview hataa shortlisting iguma soo darin, waa liiga soo tagay. waxaan u maleynayaa inay iga soo tageen about discrimination oo dadka midabta goor sababtoo ah intii lugaha qabtay oo soconaysay waa la soo qaatay. waxaan ahaa qofka keli ah oo curyaanka ah misane application geystay haddana laga soo tagay inta kale oo lugaha qabtayna la soo qaatay. curyaannimada Nuuraddiin kali kuma aha aabihii iyo laba la dhashay ayaa sidoo kale naafo ah. aad baa u xumaanaysaa adigoo wax soo baratay misane lugahaadii ama maanta xoogaadii wax ku qabsan karin misane curyaan ah oo wixii maanta haddii orod ay noqoto oo hay'adii maxaa liiga soo tagay ama ninkii ay u tagi karin oo meesha joogaan ay u tagi karin ay socon karin oo meesha inta ka tagto meesha xafiiskooda inta tagto aan la doodi karin oo haddana dhadaan bixi transport iyo waxyaalo laga rabo oo taxi laga rabo biskili wax ugu riix ahaysan aad ba qalbiga u jabaysaa oo qalbiga ka xumaanaysaa. aabihii Faarax Budul Uleex oo sidoo kale wax bartay waxa uu baraha bulshada dhawaan soo dhigay codsi uu ku dalbanaya in wax laga bedelo noloshiisa adag isla markaana shaqo la siiyo. arrinta waxay u kalaftay maadaama aan nin ogorar isku soo dhibayay hay'adda UNHCR oo ka rajaynayay inaan dejin waddanka saddexaad inaan ka helo inay suurtagali wayse ilaa hadda oo meeshay iska taagantahay xaaladda qaxootigana dadkii ay waddankooda hooyo ay dib ugu laabanayaan. hay'adihii meesha ka howlgalayeen badi ay albaabada laabteen oo shaqadii ay soo gabaabatay. waxay u kalaftay inaan anigana waddankayga aan dhex joogay inaan dadkayga iyo bulshadayda iyo inaan dhex galo oo bal shaqo iyo wax kasta laga dhex raadiyo. Zainab Xuseen Maxamed waa hooyada Nuuraddiin oo 4 qof oo naafo oo saygeeda ku jiro iyo 3 ay dhashay ay gurigeeda ku nool yihiin. aniga ilmahan curyaamahan dhalay ilma curyaama waa 3 cunug aabahana waa ninkan curyaanka waa 4 curyaan qoys 4 curyaan ay ka kooban yihiin. xaaladda ninka curyaanka adiga waa garan la aadankan maxaa la dhihi jiray lixaadka ninka lahaa waa sidoo raba aan helaynin ninka curyaan oo maanta shaqo aan haysanin waalidka dhalan aan shaqo haynin guriga fadhiyo aniga maamada aan ahay maama akhrisatana aan ahayn xaaladda adiga way ka kooban yihiin waa iska garan. waraan waxay ahaayeen Kenyaan ku dhaqan magaalada Balambale ee ismaamulka Garissa balse qaxootiga xeryaha Dadaab ayay soo galeen sanadii 2009 kadib markay u adkeysan waayeen nolosha adag ee aysan cidna uga maciinin halkaas oo hay'adda UNHCR magan galeen. haatan oo qaxootiga badankood Soomaaliya ku laabteen inta kalena mustaqbalka u jeedaan
nuuraddiin iyo reerkooda jahada ayaa ku wareersan maadaama ay isaga iyo 7 carruur oo la dhalatay sharciga dalka Kenya ku waayeen qaxootinimo Soomaalina u laaban karin maadaama aysan abid arkin hantina uga horeynin. marka waxaan rabaa muslimiinta inta ila dhalatay oo annaga muuqaanaga iyo magacaana iyo garanay in annaga arrinta wax naga la qabtaan oo ilmaha annaga iyo annagoo dhanba si nolosha annaga lagu maareyn lahaa oo qaxootigan aan uga noqon lahayn oo galbatiyo ugu badan wiilasha sharci iyo heli laayeen in taakada liigu saar oo wiilasha ay sharci igu heli laayeen day sharci helaan oo jaamacad akhristaan ayaga wasiir dogsan lahaayeen. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dadaab.